haddaba inta aynaan barnaamijkeena u gelin waxaan doonayaa halkan inaan fariin yar uga diro laba kanaal oo runtii aan aad u jecelahay inay fariinta iga aqbalaan. fariintan oo ka timid Kamaal Axmed Cali oo ah turjumaaga buugga Amiin Al-Mufti. kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka farshaxan. maanta waxaan idin hayaa qormo ku saabsan dalkaasi Hindiya. 5 waxyaabood oo la yaab leh oo dalkaasi Hindiya gaar u leeyahay. 5 waxyaabood oo ay ka mid yihiin dhismaha caan baxay ee jacaylka ee loo yaqaan Taj Mahal. haddaba inta aynaan barnaamijkeena u gelin waxaan doonayaa halkan inaan fariin yar uga diro laba kanaal oo runtii aan aad u jecelahay inay fariinta iga aqbalaan. fariintan oo ka timid Kamaal Axmed Cali oo ah turjumaaga buugga Amiin Al-Mufti. runtii buugga anigu waxaan bilaabay muddo imika laga joogo 2 bilood ka hor. markii inta aanan bilaabin waan u sheegay oo permission baan haystay waxaan u sheegay inaan buugga wada duubayn aan bar yar duubayo. waan u iga ogolaaday anigoo aan intii aan ka rabay dhamaystirina waxyaabo badan markaan eegay waan iska joojiyay. waxaan markii hore moodayay kanaalka dugsiimo iyo kanaalka marcade inay ogolaansho iyaguna ka haystaan Kamaal Axmed Cali. laakiin se waxaan ogaaday inay ogolaansho ka haysan kadib markuu isagu sheegay iyo markaan ogaaday inay iyagu doonayaan inay buugga gabigoodaba dhamaystiraan. runtii waxaan walaalahay ku waaninayaa adigoo views yar raadinaya ha ku ciyaarin sharafta walaalka. wax walba copyright bay leeyihiin aynu ilaalino. isna sidoo ku soo qoray bartiisa Facebookga runtii ma ogola in buugga la wada bedelo muuqaal ama maqal. marka fadlan dugsiime iyo marcada waxaan ku leeyahay fadlan wixii aad imika duubteen waa duubteen waxa dambe uu iska daaya maadaama aanu ogolayn turjumaagii buugga Kamaal Axmed Cali. runtii waxa kale oo la ii sheegay in isna kanaal kale oo la yiraahdo Dun Carbeed uu isna ku soo biiray oo uu doonayo isna inuu imika buugga soo bandhigo. runtii marka buuggu wali suuqa ayuu iibkiisii ku jiraa ayaynaan ku ciyaarin walaalkeena niyad jabinin. intaasaan runtii fariinta kaga baxaya. Taj Mahal waxaa dhismihiisa la bilaabay 1632 waxaanu dhamaaday 1658 waxaana dhisay boqor muslim ahaa oo u dhisay boqoradiisii jacaylka ee Mumtaz Mahal. waa mid ka mid ah dhismayaasha taariikhiga ee dalkaasi Hindiya. waana il dhaqaale oo lacag badan ka soo gasho dawladda Hindiya maxaa yeelay waxaa sanad kasta soo booqda ku dhawaad 6 milyan oo dalxiisayaal ah. macbadiyada Hindiya waxaa ku yaala wax ka badan malaayiin macbad oo lagu cibaadeysto kuwaas oo ay leeyihiin diimo kala duwan kuna yaala dhammaan gobollada iyo magaalooyinka dalka marka laga reebo in yar oo muslimiina. dhaqamada kala duwan ee dalkaasi waxay leeyihiin cajaa'ib mug weyn. Hindidu waa dadka kaliya ee wali dunida dhaqankooda ku sii adag. kumanaanka malaayiin ee Hindidu waxay leeyihiin ciyaaro, diimo, heeso iyo dhaqano dhammaantood kala duwan haddana waxay ku midaysan yihiin hal wadan. dadka Hindiya waxa ku nool ku dhawaad 1 bilyan iyo bardada. waana dalka labaad ee dunida ugu dadka badan waxaana la saadaalinayaa 30 sano ee soo socda inuu noqdo dalka koobaad ee dunida ugu dadka badan maxaa yeelay China oo ka dad badnaa wuxuu bilaabay inuu tirada dhalmada yareeyo. guud ahaan dadyowga Afrika marka la isku daro waxa ka badan Hindida ku nool dalka Hindiya oo kaliya. Bollywood waa shirkadda filimaanta soo saartay ee dalkaasi Hindiya waxaana barigii hore la oran jiray Bombay Cinema. waana shirkadda soo saarta filimaanta ugu badan ee dunida laga daawado. 364 filim ayay soo saartay sanadkii 2017 oo qura. waxaana aflaamteeda loo turjumaa luqado badan oo dunida ka caan ah sida Carabida, Ingiriisida, Faransiiska iyo afaf kale oo badan.